hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer ayaa maanta goob fagaaraha ku gubtay 80 kartoon oo ah dawooyin dhacay. Dawooyinkani dhacay ay gubtay hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer ayaa ahayd dawo dhacday taasoo la doonayay in magaalada Burco laga soo geliyo kastamka beer. Balse ciidamka kastamka beer oo kaashanaya hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer ayaa ku guuleystay inay qabtaan dawadaasi dhacday. Shaqaalaha hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer oo horkacayay suduwaha hay'addaasi ee gobolka Togdheer aqoon-yahan Cabdifataax Axmed Maxamuud ayaa goobjoog ka ahaa madashii lagu gubaayay dawadaasi. Isuduwaha hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer aqoon-yahan Cabdifataax Axmed Maxamuud ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay u soo qabteen dawadaasi dhacday. halkan maanta waxaanu ku gubaynaa dawooyin muddo dhaafay oo cadadkoodu gaadhayo 80 kartoon isugu jira kartoomo yar yar iyo kuwa waaweynba halkan oo ah goobtii ay dawladda hoose u asteysay in lagu gubo waxyaabaha xumaaday ama dhaca dawooyinkan waxaanu ku qabanay kastamka beer ayuu ka soo galaya dhammaantoodna waa dawo weeyaan loogu talagalay bilaadanka muddo dhaafay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka turbataariyada gaar ahaan taliyaha ciidanka turbataariyada ee kastamka beer oo hawshaas waxaan nagala shaqeeyay ayaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda qaybta kastamada maamulaha iyo maamulka hoggaanka waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dawladda hoose oo si wacan nagala qayb qaadatay hawshan xogahiyaha agaasimaha arrimaha bulshada iyo madaxa faydhowrkaba aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa si wacan nagala shaqeeyeen sidoo kale waxaan leeyahay karin iyagana ciidanka booliiska iyaguna si wacan nagala qayb qaatay hawsha taliyaha ciidanka booliiska qaybta booliiska iyo ku-xigeenkaba aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa iyo dhammaan cid kasta oo nagala qayb qaadatay hawshan waxaan kaloo mar labaad iyagana aan u mahadnaqaynaa hay'adda dhawristeeda ee heer qaran gudoomiyaha agaasimaha iyo agaasimaha quality assurance-ga iyaguna hawsha si wacan nagala shaqeeyay aad iyo aadna waan mahadsantiin anigu markasta waxaan u taaganahay inaan dadka ka ilaalino waxyaabaha caafimaadkooda iyo badqabkooda waxyeelaya maadaama aan qaabilsanahay quality iyo food and drugs wixii cuntooyinka iyo dawooyinkiiba waxaan markasta u xil saaranahay inaan ka ilaalino dadka wax kastoo caafimaadkooda iyo badqabkooda waxyeelaya ay ka yihiin waxyaabaha muddo dhaafay waxyaabaha tayarteedka loogu talagalay ka hooseeya iyo waxyaabaha aan spoilerka noqday xumaaday ama dawooyinka ama cuntooyinka xumaaday inaan dadka ka qabano anaga waajib masaaran weeyaan aad iyo aad mahadsantiin. geesta kale isuduwaha hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer ayaa fariin adag u diray cid kastoo isku dayday inay magaalada Burco soo geliso dawooyin iyo sharaabo dhacay wuxuuna isuduwuhu cadeeyay inay indhaha ku hayaan cid kastoo isku dayday isla markaasna ay sharciga la tigsan doonaan. ugu dambeyntii xafiiska hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer ayaa muddooyinka u dambeeyay waday dadaal xooggan oo ugu kurgalayo inuu bulshada ka hubiyo dawooyinka iyo sharaabada soo galaya magaalada Burco si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada. waa Maxamed Ibrahim British TV qaranka Somaliland Burco.